dhawaada akhyaarta qisadeenna shanaad oo aad kala socotaan kanaalka cilmi kororsi. haddii uu kugu cusub yahay kanaalkan, fadlan saar subscribe si aad ula socoto qisooyinka kale ee soo socda. qisadani waxa ay ka dhacday tuulo ku taalla xuduudda dalka Turkiga uu la leeyahay dalka Ciraaq. Jaawid oo ahaa nin dhalinyaro ah oo xoog badan, laguna tirin jiray ninka ugu kartida badan la tuulada, waxa uu la shaqayn jiray guddoomiyihii tuuladaasi oo ah nin ay magacaabeen dadka tuulada u degan markii ay u arkeen inuu yahay ruuxa mudan inuu magaalada tuulada ka taliyo. Tuuladu dal ahaan waxay ka tirsan tahay dalka Turkiga, laakiin wax xiriir soko ah oo ay la leeyihiin dawladda Turkiga ma jirto. ma haystaan iskuulle iyo isbitaallo iyo wax ay wax ku bartaan. Jaawid waxa uu noqday ninka keliya ee dadka oo dhan ay wada jecel yihiin, xoog furnaantiisa, daacadnimadiisa, iyo sida uu had iyo goor diyaar ugu yahay inuu u khidmeeyo una shaqeeyo dadka tuulada degan. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa tuuladii soo weeraray qolyaha mucaaradka ku ah dawladda Turkiga. waxa ay dileen guddoomiyihii tuuladii iyaga oo ku eedeeyey inuu yahay sirdoonka gudbiya sirta ay leeyihiin qolyaha mucaaradka. waxayna tuuladii u sheegeen in ay doortaan qof aan wax xiriir ah la lahayn dawladda Turkiga, weligiina aan tuulada ka tegin. waxaa la doortay Jaawid oo ahaa markaasi ninkii mudnaa. sidaas ayuu Jaawid ku noqday guddoomiyihii tuulada. guddoomiyenimadu ma lahan waqti ay dhacayso, waxa ay ku xiran tahay ilaa ruuxa guddoomiyaha uu dhinto ama isaga iskiis isaga taga xilka. inta ka sokayso isaga ayaa ah ruuxa looga dambeeyo talada tuulada. waa uu guursaday, waxaana loo dhalay wiil. laakiin dhalashada wiilkana way ka duwan tahay dhalashooyinkii wiilashii kale ee tuulada hore loogu dhalay ama uu Jaawid arki jiray ama uu maqlay. islaantiisu waa ay foolanaysay, waxa uuna bannaanka ku sugayay waxa la dhali doono. dumarka oo dhan waxa ay ku soo urureen iskuna soo xayn daabeen gurigii ay gabadhu ku foolanaysay, iyaga oo sugaya markii ay maqlaan oohinta cunuga markii la dhalo, gaar ahaan haddii uu noqdo wiil inay alalaasaan. islaantii waa ay dhashay, laakiin wax oohin ah oo la maqlay ma jirto. waxaa soo baxda umulusadii oo dhahaysa, guddoomiye Jaawidow, cunugaa laguu dhalay. waxa uu weydiiyey, gabar miyaa mase wiil? way isaga aamustay. war ma gabar baa mase wiil? way isaga aamustay. maadaama umulusadii uu ka waayay wax jawaab ah, waxa orod ku soo galay gurigii. waxa uu arkay cunugii loo dhalay. waa wiil, lug iyo gacni gaaban tahay, afku qalloocan yahay, ishu u dhammaystiri waayey. isagoo murugaysan, xanuun daran uu hayo, ayuu gurigii isaga soo baxay. dadkii tuulada markii ay weydiiyeen, maxaa jiro, maxaa la dhalay, cidna uma jawaabin, wuu iska dhaqaaqay. dadkii oo wada yaaban ayaa waxay ogaadeen in cunuga la dhalay uu yahay curyaan. wiilkii yaraa ee curyaanka ahaa waxaa loo bixiyey Casiis. Jaawid wiilkiisa yar marka uu soo barbaaray waxa uu isku dayay in uu geeyo dhammaan isbitaallada u dhow tuulada si loogu helo ugu yaraan daawo. laakiin nasiib darro, isbitaalladii oo idil waxa ay u sheegeen in Casiis uusan lahayn wax daawo ah, noloshiisa inta ka dhimanna uu sidan ku noolaan doono. Jaawid Casiis kadib waxa loo dhalay 2 wiil oo kale oo caafimaad qaba, 6dooda lixaadna u dhammaystiran tahay. waxa uu bilaabay inuu daryeel gaar ah siiyo carruurtiisa caafimaadka qabto, maadaama cunugan uu ka quustay wax daawaana uu u waayey. Casiis carruurtii kale waxa ay bilaabeen in ay garaacaan, una yaqaanaan inuu yahay nin waalan, maadaama uusan hadlaynin. isagoo Casiis waxa uu isku dayayey
in carruurtan kale uu la saaxiibo, uu la ciyaaro, inkastoo uu curyaan yahay, codna uusan soo saari karin, laakiin caqliga wuu qabaa. Waxa lagu ciyaaraya iyo waxa la qabanayna wuu dareemayaa. Laakiin carruurtu waxay ka dhigteen wax ay isaga ku ciyaaraan. Waxa uu noqday kubaddii lagu ciyaari lahaa ee tuulada. Dhammaan wiilashii ku da'da ahaa Casiis waa ay guursadeen. Qaarkood waxaa loo dhalay carruur, laakiin Casiis weli xaas ma lahan. Xataa lama weydiin inuu u baahan yahay in kale. Hooyadii iyo aabbihii uma haystaan inuu yahay nin caafimaad qaba una baahan reer inuu samaysto. Waxaa had iyo goor xoogga la saaraa carruurta kale. Isagoo markii cunnada la siiyo farasku iska raacaa, duurku iska aadaa. Markuu yimaadana cunnaa la siiyaa, uu iska seexdaa. Subax weliba maalmihii dambe waxa uu soo ag istaagaa una yimaadaa aabbihiis iyo hooyadiis. Wuu ganuunacaa, waxbuu isku dayaa inuu sheego, laakiin lama fahmo. Waxay hooyadii aabbihii weydiiyaan, war maxaa rabtaa? Waxba ma sheego. Cid fahantaa ma leh. Ileen Casiis waxa uu la jeedaa hooyo iyo aabbo, waan gaaray xilligii guurka gabar la ii doono. Maalinkii dambe aabbihii waxa uu shaaciyey in wiilkiisii labaad uu gaaray da'dii guurka loona dooni doono gabar. Casiis raggii la saaxiibada ahaa waxay u sheegeen in walaalkii berrito loo dooni doono gabar. Wiilku waxa uu xaq u leeyahay marka gabadha loo doonayo in uu sheegto tilmaamaha gabadha uu ka rabo. Sida caadadu tahayba, gabadha waxaa doona hooyada dhashay wiilka, walaashii weyn, habaryartii, eedadii iyo islaamaha u dhadhow reerka ay ehelka yihiin. Markii ay bannaanka u soo baxaan waxaa loo yeeraa wiilka, waxaana la weydiiyaa tilmaamaha gabadha uu doonayo. Xilligaa waxaa aad loo jeclaa gabdhaha indhaha buluugga ah leh, timaha aadka u dhaadheer leh, ilkahooduna ay cadcad yihiin. Maamadii waxay u yeertay wiilkeedii labaad. Casiis wuu soo cararay, isaga oo muujinaya inuu yahay midka ka mudan walaalkii ka yar, inuu yahay ruuxa xaqa u leh guurka, inuu yahay wiilkii koowaad ee reerka. Hooyadu waxay tiri, hooyo, waxba ma sheegayo, wuu iska ganuunacaa. Laakiin waa la dareemayay dhammaan inuu hadafkiisu yahay inuu u baahan yahay gabar uu guursado, walaalkiina uu xaq uga leeyahay inuu isaga hor guursado. Laakiin cid danaysa ma jirto. Wiilashii kale ayaa garbaha ku dhegay, waa la ceyriyey. Isagoo qaylinaya oo ganuunacaya ayuu faraskiisii iska raacay, iskana cararay. Waxaa loo doonay walaalkii ka yar gabadhii. Maamooyinkan gabadha doonaya waxa ay aadaan tuulada ugu dhow ee ay ka heli karaan gabar guur gaar ah. Markay tuuladu tagaan waxa ay weydiiyaan reerka ay u joogta gabar guurka gaartay. Markii loo sheegay kadib waxa ay ku dhex wareegaan tuulada iyo guryihii loo tilmaamay, waxayna ka xushaan guriga ay u arkaan inuu mudan yahay. Markay guriga galaan, gabadha isha saaraan kuna qancaan kadib waxaa loo yeeraa dumarka tuulada jooga oo idil, waxaana la weydiiyaa oo la imtixaanaa gabadhii la guursan lahaa. Waxaa waagaa dhaqan ahayd in gabadha la weydiiyo kow in ay quraan taqaano. Haddii ay quraan aqoonin waa laga tegayaa. labo in ay taqaano karinta cunnada, ninkeeda ay u karin lahayd, iyo midda sida gaarka loogu kariyo marti markii ay timaado. saddex gabadha waxaa la weydiiyaa in ay ku dul socoto xarig dhulka la dhigay. Waa inaysan lugteedu gafin xariggaasi. Arrintaasi waagaa waxay u yaqiineen gabadha xariggaasi ku toostaaho nolosha iyo mustaqbalka reerkeedu idil wuu toosayaa. Laakiin haddii ay ka leexleexato waxay noqon doontaa mid dagaal badan, tuulada aan anficin, ninkeeda la dagaalanta, reerkana burburisa. Waxaa maalinkii dambe la keenay tuuladii gabadhii oo faras saaran, loona guuriyey Casiis walaalkii. Casiis wuu ooyey. Wuxuu dadkii oo dhan u muujiyey inuu yahay gabadhaasi la keenay ninka saxda ay guursan lahaa isaga. Walaalkii inuusan xaq u lahayn maadaama isaga uu ka weyn yahay. Meel kastuu galay wax walbuu isku dayay, laakiin cid fahantay ma jirto. Garbaha ayaa la qabtay sida caadada ahaydba waa la jiiday, waxaana laga ceeriyey meeshii. Casiis oo murugaysan oo aad u qalbi jaban ayaa waxa uu go'aansaday inuu reerka, ehelka, dadka iyo dadka wax waliba u dhowba isaga aamuso. Casiis waxa uu galay nolol go'doon ah oo dadkoo dhan ka go'an. Waaga markuu baryo wuu iska cararaa,
habeenkuu soo hoydaa, cunnada ayaa xoog lagu siiyaa. tuuladu markay carruurta arkaan way garaacaan. waxa uu noqday ruux aan cidda ehelka tuulada qof bini'aadana meeshaasi ku nool aan u tirsanayn, ilaa laga gaaro maalinkii macallinka. casiis noloshiisa oo dhan waxa ay isbeddeshay maalinkii macallinka. macallinka wuxuu ku soo kordhiyey nolosha casiis. fadlan la soco qaybta labaad ee qisadan. mahadsanidin.